xabxabka ama qaraha waa midhooyin faa'iidooyin badan u leh jirkeena. waa midhaha ugu biyaha badan inta loo yahay waxaana lagu qiyaasaa 290% inuu biyo yahay. haddaba saas oo ay tahay waxaa ku jira nafaqooyin kala duwan oo uusan jirkeenu ka maarmi karin. nafaqooyinkana waxaa ka mid ah vitamin A, vitamin B6, vitamin C iyo weliba vitamin E iyo weliba borotiino kala duwan. daawada ku soo dhawow kanaalka caafimaad tips. haddii kanaalkan aad ku cusub tahay calaamadan guduudan ama casaanka ah hadba sida u taqaano ee subscribe ku qoran tahay ayaa taabanaysaa. intaas kadib haddii aad rabto inaad hesho barnaamijyada aanu soo gelino kanaalkan isla daqiiqada aanu soo gelino waxaa taabanaysaa calaamada gambaleelka ama jalaska hadba sida u taqaano ayaa taabanaysaa. waxaad helaysaa kadib wax kasta oo aanu soo gelino kanaalkan isla daqiiqada aanu soo gelino. waxaa kaloo ku jira qaraha ama xabxabka macdanta loo yaqaano potassiumka taas oo unug kasta oo jidhkeena ah uusan kaba maarmi karayn. xabxabka ama qaraha waa hadba magacaada u taqaanee kuma jirto wax dufana wayna ku yartay maadada loo yaqaano carbohydrate-ka sidaa awgeedna laguma tiriyo midhaha lagu cayilo ama lagu naaxo. qaraha ama xabxabka waxaa ku badan maadada loo yaqaano lycopene waa maado ku yar midhaha kale waxayna cilmi baarayaasha sheegeen in maadadaas inkastoo ay ku yar tahay laga helo midhaha kale sida yaanyada, saytuunka guduudan ama casaanka, cinabka guduudan ama casaanka. maadada lycopene waxa ay ka qayb qaadataa caafimaadka wadnaha, lafaha iyo weliba yaraynta khatarta kansarka qanjirka ragga ee borostatada. waxay kaloo maadadan la dagaalantaa sunta ku jirta jirka. markasta oo qaraha ama xabxabka uu aad u sii bislaado oo islamarkaana casaan ama guduud saa'ida u noqdo maadada lycopene way ku sii badataa. borotiinka qaraha laga helo waxaa u badan nooca loo yaqaano citrulline waxayna muhiim u tahay xididada dhiigga waxayna kordhisaa qulqulka dhiigga. waxaa kaloo xabxabka ama qaraha ku jira maadooyinka calciumka iyo birta inkastoo ay ku yar yihiin. haddaba daawada intaa waxaynu kaga gudbinaa hordhac kooban oo ku saabsanaa xabxabka. iminka waxaynu galaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay qaruhu ama xabxabku inagoo qodob u dul istaagi doonaa. daawasho wanaagsan. caafimaadka wadnaha iyo weliba qaraha waxa uu yareeyaa halista wadnaqabadka iyo unugyada murqaha wadnuhu inay duqoobaan. wuxuu kaloo ka hortagaa in xididada wadnaha ay subag ama dufan ay ku samaysmaan. haddaba qoraal lagu daabacay joornaalka dhiigkarka ee ka soo baxa waddanka Maraykanka waxay cilmi baarayaal ku soo bandhigeen in qaraha uu yareeyo cadaadiska dhiigga ee ku dhaca dadka burburan. ka hortagga caabuqyada iyo weliba xabxabka sidan hore u soo xusnayba maadada lycopene loo yaqaano waxaa yaraysaa halista caabuqyada iyadoo hoos u dhigta waxyaabaha ka qayb qaata caabuqa iyo inay yarayso sunta jidhka. sidaa aawadeedna dhakhaatiirta ayaa kula taliya dadka qaba xanuunada riixa, roobatiisanka iyo murqa xanuunka inay badsadaan cunista iyo cabista qaraha. dhinaca kalena xabxabka waa fuuq celiye oo xabxabka waxa ugu horeeya cunada jidhka u soo celisa awooddii iyo tamartii haddii uu qofku fuuq baxo maadaama ay ku jiraan biyo aad u badan taasoo macnaheedu ah in keliyaha iyo qashinsaarkaba aad ugu roon yahay. waxaana loo adeegsadaa in quruuruxa yaryar ee keliyaha ama kaadi marayka ku jira inuu soo saaro dheefshiidka iyo qaraha. xabxabka waxa ku jira maadada fiberka ama buunshaha loo yaqaano taasoo dheefshiidka iyo mindhicirada caloosha u roon. xabxabka waxa uu wanaagsan yahay maqaarka iyo timaha maadada vitamin A oo ku badan daraaddeed waxayna u roontay maadadani kobcinta unugyada maqaarka iyo tinta waxayna ka hortagtaa jidh qalaylka, kansarka prostate-ka iyo qaraha. cilmi baarayaal dhowr ah ayaa ogaaday in qaraha uu yareeyo tarmidda unugyada qanjirka prostate-ka sidaasna uu ku yarayn karo halista cudurkan. waxaana warbixinta lagu soo bandhigay maxadka ka hortagga kansarka. haddaba ugu dambayntii daawadayaasha qiimaha badan ee ku xidhan kanaalkan caafimaad tips waxa aan weydiinaynaa su'aal: ma tahay qof xabxabka cunistiisa badsada ama xabxabka xiiseeya cunistiisa? intee in leeg ayaad jeceshahay xabxabka cunistiisa? 30%, 60%, mise 100%? daawada ku soo dhawow kanaalka caafimaad tips. haddii kanaalkan aad ku cusub tahay calaamadan guduudan ama casaanka ah hadba sida u taqaano ee subscribe ku qoran tahay ayaa taabanaysaa. intaas kadib haddii aad rabto inaad hesho barnaamijyada aan soo su'aalaha jawaabahooda mid aad hesho hoos gelino waxaa taabanaysaa calaamada gambaleelka ama jalaska hadba sida u taqaano ayaa taabanaysaa. waxaad helaysaa kadib wax kasta oo aanu soo gelino kanaalkan isla daqiiqada aanu soo gelino.